Asalaamu calaykum. Waxaan idiin soo jeedinayaa buugga la magac baxay Ku raaxayso nolosha. Waxaa qoray Sheekh Abuubakar Maxamed. Buuggan wuxuu ka kooban yahay 6 qaybood oo muhiim ah. Qaybta koowaad ha murugoon. Qaybta labaad raaxada ruuxda. Qaybta saddexaad raaxada maskaxda. Qaybta afraad raaxada qalbiga. Qaybta shanaad raaxada jirka. Qaybta lixaad ka farxi dadka. Qaybta koowaad ha murugoon. Lagama yaabo inuu qofku noqdo mid ku raaxaysta noloshiisa haddii uu dareemayo murugo, sababta oo ah laba dareen hal mar ma kulmaan: dareen farxad iyo dareen murugo. Waxaan marka ugu horeeya ku bilaabi doonaa safarkeena quruxda badan ku raaxayso nolosha. In aan daawo u helno murugada aan dareemayno, waxaan qaybtan kugu soo bandhigi doonaa aad maskaxdaada uga masixi lahayd maalmo mugdi ah soo martay uguna diyaarin lahayd maalmo nuur badan. Muhiimadda ay leedahay in aad noolaatid hadda, sidaad u qeexi lahayd dhibaatada ku haysata, sida aad ku ogaan lahayd asal ahaan halka ay ka timid dhibaatada, waxyaabaha aad ku xallin lahayd dhibaatada, ducooyinka iftiiminaya noloshaada, Alle inuu kuu abuuray farxad. Qaybta labaad raaxada ruuxda. Aan raadiyay waxa ay ku raaxaysato ruuxdu. Waxa aan ogaaday qofka kaliya inuu yahay mid ka abuuray ruuxda iyo dadka oo dhan, Allah. Kadibna waxaan ka baaro Quraanka iyo Sunnada. Waxa aan ogaaday in aysan ruuxdu raaxaysanin ilaa marka ay u dhawaato midkii abuuray, Allah. Waxaan soo qaadan doonaa qaybahan soo socda: caanka uu leeyahay iimaanka iyo sida aan u heli lahayn iimaankaas, waxa laga helo salaada iyo sidaad ugu raaxaysan lahayd salaadaas, deganaanshaha qalbiga halka qaybta saddexaad raaxada maskaxda. Inta aad nooshahay, waxa ugu weyn oo farxad ama murug ku dareensiiya waa sida aad u fikirayso. Sababta aad ugu raaxaysan weydo noloshaada waa natiijada ka dhalatay qaabka liita aad u isticmaalayso maskaxdaada. Qaybtan wuxuu si dhab ah kaaga caawin doonaa sida loo ogaado waxa si dhab ahaan kuu farxad geliya, sida aad u qaadan lahayd mas'uuliyadda nafsadaada, sida ugu fiican ee loo dejiyo hadafyadaada, iyo sida degdeg lagu gaaro hadaf kasta oo leedahay noloshaada, sida aad ugu raaxaysan lahayd inta yar ee aad haysatid, sida aad ku ogolaan lahayd noloshaada, sida loo noqdo mid mar walba Alle u mahad celiya, sida wax walba dhinaca wanaagsan loogu fiiriyo, in aadan isbarbar dhigin, sida aad u ahaan lahayd qofka adiga aad tahay, una joojin lahayd saameynta hadallada dadka. Qaybta afraad raaxada qalbiga. Waxa ugu weyn oo ku raaxaysto qalbigu waa in uu helo jacayl joogto ah. Jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto. Soo maadan arkin mar walba aad fiiriso qofka aad jeceshahay, wejigaaga waxaa ka muuqda farxad iyo dhoola caddayn. Waxaa qaybtan kugu soo bandhigi doonaa sida jacayl qurux badan loo dhiso, sida jacaylkaas quruxda badan loogu noolaado, sida loo doorto lamaanaha mustaqbalka, qofka sida dhabta ah kuu jecel, waxyaabaha lagu garto, bangiga jacaylka waa maxay, sida uu la dhaqmi jiray nebiga xaasaskiisa, sida loo nadiifiyo qalbiga. Qaybta shanaad raaxada jirka. Daryeelidda jirkaagu saameyn aad u weyn bay ku yeelataa ku raaxaysiga nolosha. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo tilmaamay in qofka naftiisa xaq ku leedahay. Qaybtani waxay si dhab ah kaaga caawin doontaa sida aad u daryeeli lahayd caafimaadkaada, sida aad u heli lahayd dhammaan maadooyinka oo jirkaagu u baahan yahay, sida aad u ilaalin lahayd nadaafadda jirkaaga, in aad maalin walba samaysid jimicsiga fudud, in aad heshid hurdo kugu filan iyo daawada hurdo la'aanta, in aad aadid safar si jirkaada firfircooni u helo, iyo faa'iidooyinka uu leeyahay safarka. Qaybta lixaad ka farxi dadka. In aad xiriir fiican la samaysid bulshada oo qalbigooda soo jiidatid, ka farxisid, ayaa ah wadada ugu wanaagsan oo loo maro ku raaxaysiga nolosha. Qaybtan wuxuu si dhab ah kaaga caawin doonaa sida aad farxad ugu abuuri lahayd qalbiyada dadka kale, sida aad u beddeli lahayd dabeecadaha aan wanaagsanayn, sida aad hadalkaada ugu dari lahayd malab si aad dadka u soo jiidatid, wadada ugu wanaagsan ee lagu qurxiyo wejiga, sida aad ku noqon lahayd qof dadka dhan ay jecel yihiin. Haddii aad jeceshahay inaad mar walba faraxsanaato oo noloshaada ku qaadato farxad, waxaad heshay fursaddii ugu weyneyd. La soco mawduucyadan oo